kulankan oo ahaa mid ay midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo maqso ay soo agaasimeen kuna soo dhaweynayaan doorasho qof iyo cod ah ee dalku gali doono dhawaan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta xisbiyada ka jira dalka iyo waliba aqoon-yahano kale inaan u mahadceliyo labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo sharcigan dadajiyay xilli loo baahnaana ansixiyay waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadcelino kuna amaano madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale iyo xukuumaddiisa oo waqti badan ku bixiyay in sharcigani uu dhaqan galo inta kadib haddaan nahay xisbiyada sida diiwaangelinta ay kumeel gaarka haysto gaar ahaan xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed oo magaca dhalinyarada Soomaaliyeed wato waxaan aaminsanahay in sharcigani uu nasiinayo fursado badan fursadahaas oo aan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku baraarigi doonaan waxay noo tahay farxad weyn inaan maantay annagoo dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka kala yimid meelo kala duwan waxyaabo kala duwan barta inaan garawsano inaan ay muhiim tahay inaan soo dhaweyno sharciga oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu ansixiyay ayna tahay achievement-iga ugu weyn ee dawladda ay gaartay kaas oo lagu xaqiijinayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo annaga ah inaan cadkeena iyo codkeena aan ku gadano waxa wadankan ka imaanayo ama waxa wadankan uu noqon doono doorasho qof iyo cod micnaheedu waxay tahay qof kasta waxaa soo dooranaya dadka shacabka ah dadka shacabkana waxa u badan dhalinyarada 70% la sheego inay ka badiyeen suurtagal waxaana midowga ardayda Soomaaliyeed ee maqso xafladda dhiirigelinta kala soo qayb galay xubno ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyagoo goobta ka jeediya macnaha ay dalka u leedahay doorashada qof iyo cod ah iyagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in uu qof kasta fahmo waxa ay tahay doorasho iyo macnaha ay u leedahay dalka ugu dambeyntiina xildhibaan Cabdifataax Qaasin oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa dhalinyaradan u sheegay in sharciga doorashada ee qof iyo cod uu yahay ka kaliya ee dalka ka saaray kala marxadihii uu soo maray isagoo sidoo kalena dhalinyarada Soomaaliyeed u muujiyay dhiirigelin muhiimaddu waxay tahay inaad xasuusnaataan inaadan wax walba ku qiimeynina siyaasadda ama ninka siyaasiga maanta aad aaminsan tahay inaadan ku qiimeynina laakiin aad ku qiimeysaan mustaqbalkiina iyo aragtidiina mustaqbaleed iyo inaad idinka hoggaanka xaq u leedihiin inaad qabataan inaad aaminsan tihiin sababtoo ah dalkan haddaad aragteen waa dal wada beec ah dadkiisu wada beec yihiin odayaa la gataa oo xildhibaana gato xildhibaankiina madaxweynaha markaa la dooranaya gato ma isku diidannahay sidee dadka markaasaa waxaa weeyaan la leeyahay oday ha raadiyo xildhibaan kaaba qabiil ha raadiyo xildhibaan shacabkii iyo dhallinyaradii waxay noqdeen dad dalkii damaan ku joogaba oo muwaadin min ad-daraja athaniya oo kale oo second level oo kale ayaa waxa weeyaan qofkii muwaadinka waxa waa lagu la dhaqmayaa haddaan la helin marka strong nation oo laaluush aanan waxa weeyaan ku dhiiran ama laaluush lagu fikirin ama laaluushka la bixinayo uu noqonayo mid shacabka ku noqonayo aanan ahayn mid siyaasi iyo xildhibaan iyo wasiir jeebkiisa galay uusan ahayn waxa weeyaan shacabka waxa waa faa'iido u tahay marka nidaamkan oo ah wax kala iibsiga horta waxa weeyaan sidoo meesha kaga bixi lahaa waxa waa in lagu talagalaa wax kaliya looga bixi karan waxa weeyaan shacabka inay mumaaraseeyaan xuquuqdooda siyaasiga ee mabaadi'da guud ee dastuurka kumeel gaarka ku qoran qodobkiisa 22aad oo ah inuu wax doorto isagana la doorto wadankana uu noqdo wadan dimuqraadiyad ah oo xor ah inuu noqdo dalka Soomaaliya ayaa la filayaa in dabayaaqada sanadka 2020 ama bilowga sanadka 2021 ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qalinka ku duugay in la isu diyaariyo doorasho ka dhacda dalka Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho